halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aanu ku leenahay bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda Afrikada bari waa 2:24 Juun sanada 2018 qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah codbixiyaasha dalka Turkiga oo maanta u dareeray goobaha codeynta iyo madaxweyne Erdogan oo tartan adag u soo wajahay. waxa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan saaka 6 barkii ku soo galay fagaaraha weyn ee kubadda cagta ee garoonka sida casriga loo dhisay magaalada Jigjiga kaasoo lagu taageerayo waxqabadkii muddadii yarayd ee xilka uu hayay Dr. Abiy Ahmed uu soo qabtay. dibadbax lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo maanta ka dhacay magaalada Jigjiga. bulshada Soomaalida ee dalka UK oo la dala dhacaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ay dhalinyarada Soomaalida London. madaxweynaha Zimbabwe waxa uu sheegay in doorashada dalkaasi ay qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay iyadoo ay jirto shalay inuu halkaasi qarax ka dhacay. dabcan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha koobka adduunka meesha kama marnaa. qodobada iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka isku soo dabaridaya Cabdiqaadir Yuusuf anigu Axmed Badarna oo idin la socodsiin doona balse marka hore warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan stuudiyaha London. mahadsanid Axmed Badar. madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa ayaa sheegay inay doorashadii loo ballansanaa 30 bisha Julaay ay sidii loo qorsheeyay u dhacayso hataa iyadoo uu yidhi la isku dayay in la khaarajiyo sabtidii kadib markii qarax ka dhacay koob uu ka qudbadaynayay magaalada Bulawayo. 41 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxan oo ka dhacay meel u dhow afaafka hore markii uu ka sii baxayay halkaasi madaxweynuhu. afhayeen la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dib u eegis lagu samaynayo ammaanka madaxweynaha iyo murashaxiinta ka qayb galaysa doorashada. waana doorashadii ugu horeysay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweyne Mugabe sanadkii aynu soo dhaafnay. Masar Mnangagwa waxa uu ballan qaaday inay doorashadu ku dhici doonto nabadgelyo. 17 hogaamiye oo midowga Yurub ayaa maanta ka wada xaajoonaya muhaajiriinta iyada oo lagu kala ra'yi duwan yahay sidii loola macaamili lahaa dadkaasi oo si xad dhaaf ah ugu soo qulqulaya Yurub. ra'iisul wasaaraha Jarmalka Mrs Merkel ayaa raadinaysa inay badbaadiso dowladdeeda bahwadaagta kadib markii uu xubin weyn oo ka tirsan dalbaday in meel adag la iska taago dadka Yurub soo galaya. dowladda cusub ee laga doortay Talyaaniga oo soo galooti la soo badbaadiyay dalkooda ka celiyay ayaa dalbanaysa in tallaabooyin adag laga qaado sidii dadkaasi looga joojin lahaa inay biyaha badda soo maraan marka ay Yurub u soo socdaan. dadka Turkiguna maanta waxa ay dhiibanayaan codkooda doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka oo uu hore u soo dhigay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan isagoo oo doonaya inuu madaxweynuhu awood badan yeesho meeshana laga saaray shaqadii ra'iisul wasaaraha. waxaa loolan weyn kula jira Muharrem Ince oo murashax u ah xisbiga bidixda dhexe oo codkiisa ku dhiibtay magaalada uu ka soo jeedo ee Yalova oo dhinaca koonfureed ka kulaasha magaalada Istanbul. Mr. Ince waxa uu rajaynayaa in tartanku gaadho wareegga labaad oo aan fikta hore lagu kala harin. xisbiga talada haya waxa iyaguna ku dadaalayaan inay sii haystaan kuraasidooda badan. 50 milyan oo qof ayaa codaynaya doorashadan oo ah tii ugu horeysay tan iyo intii uu dhacay afgambigii dhicisoobay. hogaamiyaha xisbiga maamul goboleedka Bavaria Markus Söder ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in aanu doonaynin in ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel aanay deegaankiisa ka ololayn doorashada deegaanka ee dhacaysa bisha Oktoobar. Mr. Söder ayaa jariidada Welt am Sonntag oo ka soo baxda Jarmalka ku sheegay inuu casuumi doono ra'iisul wasaaraha Austria Sebastian Kurz. Mr. Kurz waxa uu calanka u sidaa siyaasadaha uu hormuudka ka yahay wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Markus Söder oo lagu diidan yahay dadka soo galeetiga ah ee Yurub imanaya. ugu dambeyntiina 3 injineer oo Turkiyiin ah oo sanadkii aynu soo dhaafnay lagu afduubay koonfurta Liibiya ayaa la sii daayay. qoraal ay soo saareen dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli ayaan lagu faahfaahin qaabka dadkaasi loo sii daayay iyo halka ay ku sugan yihiin qof u dhashay koonfurta Afrika oo dadkan lala afduubay magaalada Ubari. afduubka ay geystaan dadka jihaad aloosayaasha ah iyo kooxaha iska soo horjeeda ayaa caadi ka noqday dalkaasi Liibiya tan iyo intii ay dhacday dowladdii Qadaafi. intaasina waxa ku eeg warkii dunida aan idinku celiyay Axmed Badar iyo qaybaha barnaamijka inooga hadhay. Axmed.
cabdixaafid cawil ismaaciil oo noo soo jeedinaya warkii dunida aad ayuu mahadsan yahay u diyaargarooba qeybaha idaacadda inooga haray aan ku bilaabnay sida warkaba aad ku maqlayseen codbixiyaasha dalka Turkiga ayaa maanta u dareeray goobaha codeynta doorashada madaxweynenimada iyo mid baarlamaanka waqtigooda laga soo hormariyay waxaana loo arkaa inay tahay tii ugu adkeyd ee soo marta madaxweynaha dalkaasi 14 sano ee uu dowladda ku jiray haddii uusan ku guulaysan codad ku filan waxa uu wareegga labaad la geli doonaa musharaxa kale ee lagu magacaabo Muharram oo ah musharax midig dhexe dowladda xisbiga talada haya ee AK ayaa sidoo kale lumin karta aqlabiyadda ay baarlamaanka ku leeyihiin waa doorashadii ugu horeysay ee dalka Turkiga ka dhacday tan iyo intii dalkaasi uu ka dhacay afgambigii dhicisoobay wararkii ugu dambeeyay ay BBC-da ka qortay waxaynu hayaa Axmed Cabdinuur marnaba taariikhda casriga ah waddanka Turkigu sidaan oo kale doorasho uguma kala qaybsamin Rajab Tayyip Erdogan weligii dagaal doorasho oo sidaan u adag lama aanu kulmin hogaamiyihii taariikhda waddanka Turkiga ugu awoodda badnaa wixii ka dambeeyay aabihii aasaasay Turkiga ee Ataturk waxa uu noqon lahaa mid weli ka awood badan haddii uu doorashadan ku guulaysto isagoo baabi'inaya jagada ra'iisul wasaaraha awoodda baarlamankana ka dhigaya mid daciif ah laakiin haddii uu gaari waayo 50% codadka doorashada madaxweynaha waxa uu wajahayaa wareeg labaad in uu la galo oo ay isku noqdaan isaga iyo Muharram Ince oo ah musharax xoog leh ee siyaasadda bidix dhexe oo isagu ololaha doorashada ka dhigay mid aad u kulul codbixinta baarlamankana mucaarad midaysan ayaa rajeynaya inay Mr Erdogan kala wareegaan aqlabiyadda baarlamanka madaxweyne Erdogan waxa uu haatan isu haystaa inuu yahay nin ay taageerayaashiisu aad u jecel yihiin mucaaradkiisuna aad u necab yihiin cidina ma sheegi karto dhinaca ay doorashadani u dhici doonto qofkan oo degan magaalada Istanbul saakadii hore ayuu ku kalahay goob laga codeynayay waxaan rajaynaynaa in doorashadani ay noqoto mid u wanaagsan waddankeenna waxaa kaloo aan rajaynaynaa in qofka ugu wanaagsan ee loolanka ku jira uu ku guulaysan doono waxaa la yaab ah in dadka ay sidan ugu soo baxaan doorashada codbixiyahan oo jooga magaalada koonfur bari Turkiga ee Diyarbakir waxa uu rajaynayaa nabadgelyo iyo xasilooni ka dhacda waddanka Turkiga waxaan doonaynaa nabad cadaalad walaalnimo sinaan iyo si dimuqraadiyad ah in lagu guulaysto doorashooyinkan waxa aan alla ka baryaynaa in qof kasta uu qalmaa uu ku guulaysto doorashooyinka madaxweynenimada iyo kuwa baarlamaanka dalka codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii Axmed Cabdinuur dhageystayaasha dhanka Facebook haddii aan eego Faarax Bashiir oo jooga magaalada Galkacyo waxa uu leeyahay doorashada dalka Turkiga ee maanta dhacaysa runtii waa mid aan la saadaalin karin cidda ku guulaysan doonta balse waxaan rajaynayaa in uu ku soo bixi doono madaxweyne Erdogan ayuu leeyahay waayo waa nin dalka mar hore horumar ballaaran gaarsiiyay ayuu leeyahay intuu xilka haya dhageystahan kale waxayaad aragsan oo joogtay dalka jamhuuriyadda Djibouti waxay leedahay doorashada baarlamaanka ee maanta ka dhacaysa waddanka Turkiga waa soo dhaweynaya run ahaantii waxayna u muuqataa mid aad u adag laakiinse waxaan filayaa in aqlabiyadda ugu weyn uu heli doono xisbiga uu hogaamiyo madaxweynaha Turkiga dhageystayaashaasi waa ay mahadsan yihiin imikana dalka Itoobiya waxaa maanta magaalada Jigjiga ka dhacay banaanbax lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed banaanbaxani oo uu ka soo qayb galay sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu ka dhacay garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro magaaladaasi ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay maadaama shalay qarax lala beegsaday banaanbax uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam ayaa dadweynaha ka soo qayb galay dibadbaxani mikrofoonka la dhex qaaday halkan aan taagannahay waa fagaaraha weyn ee garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga cusub waa garoon aad isugu soo banaan baxay saaka salaadii ayaa dadkan yimaadeen haddii aan dadka ra'yigooda dad ka mid ah weydiiyo magacaaga saddexan waa ugaas Cabdulqaadir ugaas Xasan waxaan halka iskugu soo baxnay si farxad leh inaanu ku soo dhaweeyno taageerada aanu hayno ra'iisul wasaaraha
federaalka Itoobiya iyo xukuumadda deegaankeenna iyo horumarka waddanka ka socdo. Saaka soo galahday saaka waxa weeyaan 6:00 aroornimo ayaan halka soo galay. sidoo kaleeto maanta dawladeenni iyo deegaankeenni iyo dadweynaheennaba waxaan cambaareynaa falkii foosha xumaa ee ka dhacay fagaaraha weyn ee dadweynaha reer Itoobiya shalay ay Addis Ababa isku soo baxeen si u taageeraan waxqabadka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed. haddii aan xagga gabdhaha u leexdo gabadh ka mid ah gabdhaha halkan isugu soo bannaan baxay magacaaga saddexan Aamina Shariif Maxamed. waxaan halkan uga mahadcelinayaa sida weyn ee u ballaaran ee sharafta leh ee nabadda ah ee loogu soo bannaan baxay shirka weynahan aan ku taageerayno ra'iisul wasaaraheena Dr. Abiy Ahmed ayaan ku taageeraynaa halkan oo ugu soo bannaan baxnay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Leila Sheekh Maxamed Mustaaqal waxaan ku soo bannaan baxnay si nabadgelyo noogu dhacday shirweynihii ilaa shalay ilaa saacadan ka shaqeynay ee ku taageeranay Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar waxaan ku leenahay ha noolaado oo ha waarto oo nabad buu noogu dhacay shirki. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Cabsaaq Axmed Cismaan waxaan saaka 6:00 ku soo galay fagaaraha weyn ee kubadda cagta ee garoonka sida casriga loo dhisay magaalada Jigjiga kaasoo ahaa isku soo baxan lagu taageerayay maxay tahay barnaamijyada ballaarnaa ee shalay toole uu ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed kaasoo lagu taageerayay waxqabadkii muddadii yarayd ee xilka uu hayay Dr. Abiy Ahmed uu soo qabtay ka kale waxa maanta isku soo baxay garoonkan weyn ee sida casriga loo dhisay dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo mas'uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hogaaminayo mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo dhammaan dhalinyarada kacaanka heego oo rag iyo dumar caruur haween midnaba aan u kala hadhin fagaarahan quruxda badan ee sida casriga loo dhisay marka waxaan cambaareynaa falkii foosha xumaa ee shalay ay gaarsiiyeen dadka aqliga gaabka ah ee maxay toolay dadkii ballaarnaa ee isku soo baxay fagaaraha marka waxaan tacsi u diraynaa dhammaan shacabweynaha Itoobiya ee shalay toole halka wax ku yeeloobay dadka dhaawacayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa si degdeg ah oo caafiyo garoonka weyn dad badan ayaa isugu yimid madaxweynihii dawladda deegaanka ayaa ka soo qayb galay inkastoo muddo aad u kooban uu dadka la hadlayay haddaba haddaan hore u sii wado hooyo ayaa ila joogto hooyo magacaaga saddexan iyo bal haddaad iga waranto shucuurtaada Cabdi Ismaaciil shirkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida nabaddu noogu dhacay maasha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Maxamed Barkada Daawud waxaan soo dhaweynayaa taageerada la siinayo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku soo dhaweynayso shucuurta dhalinyarada deegaanka Soomaalida aad bay u fiican tahay dhammaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida gacmaha ay haystaan. kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii maanta ka qayb galay dibadbax ka dhacay magaalada Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya waxa noo soo socota sheeko ku saabsan 70 sano oo laga joogo markii kombiyuutarka la sameeyay iyo ninkii sameeyay qudhiisa oo arintaasi ka hadlaya. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Imikana Zimbabwe madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu sheegay in doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo 3 bisha July ay sidii qorshuhu ahaa sii socon doonto iyadoo ay jirto waxa uu ugu tilmaamay isku day lagu doonayay lagu qaarajiyo qarax ayaa ka dhacay maalintii shalay ahayd meel u dhow madaxweynaha isaga oo khudbad ka jeedinaya magaalada labaad ee ugu weyn dalka Zimbabwe ee Bulawayo dawladda dalkaasi ayaa xaqiijisay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 14 qof oo ay ku jiraan saxafiyiin iyo askar ka tirsan ciidamada ammaanka wariyaha BBC-da ee dalka Zimbabwe Shangai Yoka ayaa wararkii ugu dambeeyay inooga soo dirtay magaalada Harare waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Yuusuf. madaxweyne Mnangagwa ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda kadib qarxii shalay sababay dhaawaca 8 saraakiil sarsare ah dawladda ayaa sheegaysa inaysan jiri doonin amar degdeg ah ee lagu soo rogo waddanka sidoo kalena aan la baajin doonin doorashooyinka loo asteeyay inay dhacaan bisha July ee fooday nagu soo haysa doorashadan ayaa noqon doonta tii ugu horeysay ee ka dhacda dalkaasi tan iyo markii xilka la wareegay Mnangagwa oo ahaa ku-xigeenkii militariga afhayeenka dawladda George Charamba ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in dawladda ay dib u habeen ku samayn doonto amniga madaxweynaha iyo kuwa kale oo tartamaya doorashooyinka madaxtinimada Zimbabwe ayaa beesha caalamka ka ballan qaaday in doorashooyin si nabadgelyo ah ku dhaco qaban doonto kuwaasi oo waddanka u noqon doona tijaabo dhanka dimuqraadiyadda ah tan iyo markii madaxweynihii hore ee dalka Robert Mugabe xilka laga xayuubiyay
cabdiqaadir aad ayuu mahadsan yahay. halkaad waleergala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee b b c da. tan iyo markii ay dhibaatooyinka la xidhiira dhallinyarada soomaalida ay ku soo bateen magaalada london ayaa waxaa soconaya dadaallo ay wadajir u wadaan jaaliyadda madaxda muslimiinta iyo dowladdaba, taasi oo ay ku doonayeen in arrintani xal loo helo. dadaaladaasi waxaa ka mid a mid uu wado ururka hooyada iyo dhallaanka oo ah urur la shaqeeya dhallinyarada iyo waalidiinta magaalada london, kaasi oo ay soo qabanqaabiyey kulan lagu xaajoonayo dhibaatooyinka dhalinta haysata sida burcadnimada ay ku kacaan iyo xagjiraynta dhallinyarada iyo sidii wax looga qaban lahaa. haddaba waryaha b b c da cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka qayb galay kulankaasi, kadibna warbixintan ayuu noo soo diray. ismaaciil lii south asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa jaaliyadda Jamaica ee Caribbean-ka London ayaanu ku koray sagaashanaadkii ayuu wuxuu qaatay diinta islaamka. waxa aanu madax u yahay urur la yidhaahdo Salaama oo la shaqeeya dhalinyarada. waxa uu ka mid ahaa marti sharafkii lagu soo casuumay bandhiga ka hortagga dagaalada dhalinta iyo xagjiraynta oo ay soo qabanqaabiyeen ururka hooyada iyo dhallaanka. khudbadiisii kadib ayaan ugu galay xafiiska isaga oo markaasi la hadlaya hooyo Soomaaliyeed oo codsatay inaan magaceeda la sheegin. ismaaciil ayaan weydiiyey inkastoo ay jaaliyadda Soomaalidu muddo deganeed dalkan Britain iminkana ay saameyn weyn ku yeelanayso dagaalada dhalinyarada isticmaalaya mindiyaha, waxa ay qaban karaan jaaliyaddu. waa in la isku dubaridaa bulshada. aad ayay u fududahay in la dhaleeceeyo dowladda, aad ayay u fududahay in la dhaleeceeyo Theresa May, aad ayayna u fududahay in la dhaleeceeyo maayirka. hase yeeshee arrinta dhabta ayaa ah in haddii waalidiinta, hogaamiyayaasha bulshada, imaamyada iyo dadka hogaamiya ay isku yimaadaan oo ay xiriir wanaagsan yeeshaan oo ay wada shaqeeyaan oo waxa aan isku khilaafsannahay aanu meel iska dhigno oo aan wada shaqayno inaan wax un samayn karno. ma aha wax ku cusub UK inay jiraan kooxo xagjir ah. ismaaciil oo ku takhasusay arrimaha waxa uu sharxay sida dhalinta looga faa'iidaysto in dhalinta cidlo laga helo iyagoo wakhti haysta, sida markay xabsiyada ku jiraan, dhibaato soo gaadhay qof ama ehelkiisa uu ku eedeeyo koox amaba dowladda, in si joogto ah khaladaada ay sameeyaan qayb ka mid ah jaaliyadda lagu celceliyo. axmed yare waxa uu iga codsaday inaanan magaciisa labaad sheegin. 3 sannadood xabsi ayuu ku jiray, iminkase waxa uu la shaqeeyaa dhalinta Soomaalida. sababta uu galay xabsiga 15 meelahaasna ahaa waxaan bilaabay inaan ciyaal israacno oo asxaab ahayn. waxaan noqonay ururkii markaa urur fiican mu ahayn. anaka waxaan xumaani waxbaanu samayn jirnay, dukaamahada wax sameeya. maalintii ugu horeysan xabsiga galay, xabsi waxaan ku galay nin baan mobilkiisa iyo lacagtiisa ka xaday. mar labaadkii xabsi waxaan ku galay baasha la yidhaaho crack cocaine. 3 sano xabsiga ku soo dhammaystay oo 3 sano oon maalin kasta islahaa dembiganoo gashay. warbixintaasi codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii cabdixaafid cawil. waxaa iminka 70 sano laga joogaa markii kombiyuutarkii ugu horreeya la sameeyey. ninkii sameeyey ayaa isaga u dhisa nool oo ka hadlay arrintaasi. waxaa istuudiyaha la fadhiya cabdinaasir saxan saxo. cabdinaasir, waa mahadsan tahay Badar. waxaan filayaa in dhallinyarada Soomaaliyeed ee ardayda gaar ahaan asxaabteyda meelo kala duwan joogay inay si fiican arrintani uga bogan doonaan oo ay u dhiirigelin doonto. 70 sano ayaa laga joogaa xilligii la asaasay ama la sameeyey kombiyuutarkii ugu horreeyay. qol dhan ayuu qaatay ninka wax ka sameeyeyna waxaa la yidhaahdaa Tommy Gordon. 90 jir waaye, Australia ayuu ku nool yahay. wuxuu hadda aad ula yaaban yahay horumarka dhacay iyo casriga iyo internetka oo dhan ayuu la yaaban yahay. 1948 isagoo 19 jir ayuu mashruuca ku biiray sanadkii ugu dambeeyay physics-ka ee dhiganaya. xilligaasi 3.5 milyan oo xisaabaad ayuu kombiyuutarkaasi sameeyey. hase yeeshee maanta kombiyuutaraadka meesha ay marayaan waad ogtahay 500 oo kun ayuu ka xawli badan yahay telefonkan yar oo aan haysano kombiyuutarka xilligaa la sameeyey. faa'iidooyinkiisa waa inta badan dadku yaqaana, laakiin ma jiraan faa'iido darro u soo kordhiyay kombiyuutarka. runtii faa'iido darro badan ayuu soo kordhiyey. shaqooyin badan oo dadka ay qaban lahaayeen ayuu hadda kombiyuutarka booskiisa galay oo qalab badan oo casri ah ayaa hadda lagu shaqeeyaa. waa mahadsan tahay. ciyaari haddii aan eegno gruubka ama kooxda G ayaa waxaa ciyaaraya maanta Ingiriiska iyo dadkaasi Panama. saacadda waxay dhici doontaa ciyaartaasi 9 saac. kooxaha gruub H ku jirana waxaa maanta wada ciyaari doona Japan iyo Senegal ayaa markaasi wada ciyaari doona. Poland iyo Colombiana waa ay wada ciyaari doonaan caawa saacadda Afrikada Bari markay tahay 9 fiidnimo. iminkana barnaamijkii baafinta.
baafinta maanta waxaa si wada jir ah istuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdulaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha, mahadsanid Samiira. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Xaawo Cismaan Yuusuf oo joogto Awdheegle. waxay baafinaysaa Maxamed Aadan Yuusuf. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 2011. haddaba haddii uuna maqlayo Maxamed Aadan ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaawo Cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Awdheegle. Jamaal Saadiq Barre oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Sharma Arke Saadiq Barre. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2015. haddaba haddii uuna maqlayo Sharma Arke Saadiq Barre amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Jamaal Saadiq Barre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. Sumaya Cabdi Qaasim oo joogto Marko waxay baafinaysaa Maryan Cali Qaasim. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2000. haddaba haddii aynu maqlayso Maryan Cali Qaasim ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sumaya Cabdi Qaasim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Marko. Fartuun Cali Jaamac oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Xamdi Cali Jaamac. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Jigjiga Ethiopia sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso Xamdi Cali Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fartuun Cali Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. Asad Macaane oo jooga Afgooy waxa uu baafinayaa Faadumo Macalin Cabdi. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Indiya 2004. haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Macalin Cabdi ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Asad Macaane iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afgooy. Saqaawe Cabdulaahi Sheekh Cusmaan oo jooga Wallaweyn waxa uu baafinayaa Saciide Cabdi Axmed. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2000. haddaba haddii ayna maqlayso Saciide Cabdi Axmed amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Saqaawe Cabdulaahi Sheekh Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wallaweyn amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 Faadumo Abshir Aadan oo joogto Wallaweyn waxay baafinaysaa Asad Xasan Aadan. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong 1995. haddaba haddii uuna maqlayo Asad Xasan ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Faadumo Abshir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wallaweyn. Hani Yuusuf Salaad oo joogta Boolamareer waxay baafinaysaa Faysal Axmed Salaad. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo Faysal Axmed Salaad amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Hani Yuusuf Salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Boolamareer amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2556787411. Sacdiyo Ismaan Cali oo joogto Wallaweyn waxay baafinaysaa Aamina Cali Yaasiin. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Jarmalka 2000. haddaba haddii ayna maqlayso ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sacdiyo Ismaan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wallaweyn. Salaad Cabdi Mayow oo jooga Wallaweyn waxa uu baafinayaa Maryan Cabdi Cali. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Sacuudiga sanadii 1997. haddaba haddii ayna maqlayso Maryan Cabdi Cali amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Salaad Cabdi Mayow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wallaweyn amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526119029. Ifo Xasan Jaamac oo jooga Awdheegle waxa uu baafinayaa Axmed Cabdi Ibraahim. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Canada 1994. haddaba haddii uuna maqlayo Axmed Cabdi Ibraahim ama way jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Ifo Xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Awdheegle. Zaynab Ibraahim Cabdi oo joogta Awdheegle waxay baafinaysaa Shankaroon Cali Jaamac. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso Shankaroon Cali Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Zaynab Ibraahim Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Awdheegle amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2556911187. Dayaara Xasan Ilays oo joogto Marko waxay baafinaysaa
aamine cali ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman haddaba haddii ayna maqlayso aamine cali ibraahim amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo diyaara xasan ilays iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay marko. nuurto shariif cabdi oo joogta awdheegle waxay baafinaysaa samsam cali cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yeman sanadii 2012 haddaba haddii ayna maqlayso samsam cali cabdi amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuurto shariif cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay awdheegle. zaynab cali awow oo joogto walweyn waxay baafinaysaa mustaf aweys axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska 2000 haddaba haddii uuna maqlayo mustaf aweys amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo zaynab cali awow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay walaweyn. muna cabdi xasan oo joogta marka waxay baafinaysaa cali axmed xasan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kanada sanadii 1997 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi axmed xasan amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo muna cabdi xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526 xaliimo cabdulaahi cabdiqaadir oo joogta afgooy waxay baafinaysaa kaafi maxamed siraad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan beled xaawo 2003 haddaba haddii uuna maqlayo kaafi maxamed siraad amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaliimo cabdulaahi cabdiqaadir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye. khadiijo macalin cali oo joogta walaweyn waxay baafinaysaa xamse yuusuf cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka jarmalka sanadii 1990 haddaba haddii uuna maqlayo xamse yuusuf cali amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo khadiijo macalin cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25268484 faadumo cabdi dheere oo joogta afgooy waxay baafinaysaa sudaam cali dheere waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Holland 1990 haddaba haddii uuna maqlayo sudaam cali amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooye. basra xamuud geelle oo joogta golweyn waxay baafinaysaa nuux xuseen geelle waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka jarmalka sanadii 1998 haddaba haddii uuna maqlayo nuux xuseen geelle amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo basra xamuud geelle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526892277. faadumo mukhtaar suurey oo joogta afgooy waxay baafinaysaa umay faarax guurey waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Cameroon 2011 haddaba haddii aynu maqlayso umay faarax amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faadumo mukhtaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooye. kaamila xasan maamow oo joogta walaweyn waxay baafinaysaa samatar maxamed muuse waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga sanadii 1997 haddaba haddii uuna maqlayo samatar maxamed muuse amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo kaamila xasan maamow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526245162. maxamed cabdalla saalim oo jooga marka waxa uu baafinayaa saciid axmed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong 1990 haddaba haddii uuna maqlayo saciid axmed amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed cabdulle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko. cali maxamed barqadle oo jooga afgooye waxa uu baafinayaa asad cali maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jakarta haddaba haddii uuna maqlayo asad cali maxamed amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cali maxamed barqadle iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2526333922. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay gooni saciid aadan oo joogto galweyn waxay baafinaysaa saalax nuur shariif waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi 1998 haddaba haddii uuna maqlayo saalax nuur amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo gooni saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay galweyn ama telefoonka lambarkiisu uu yahay 0677942229 marko. baafintiina maanta waa naga intaas.
samiire iyo caasho aad ayuu mahadsan yihiin oo nala socodsiinayay barnaamijkii baafinta qodobada wararka caalamka u waaweynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalkaas